رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي وحرة سيديتين مي في عنتين حالدين كسورما أنو يدي وناكسنا هاي رمضان مبارك رمضان وناكسن إلى هاي رمضان كان إيه رمضان نكلو بدن بفرحة عافيمات دمانتين هسوكين تسيو إن شاء الله وهنا gaarsiiyo waxaweye maanta ramadan day one bay noo tahay marka waxaan rabaa inaan afur diyaaris xilligaas aan sameeyo saacad waa 2 duhurnimo xilligaas afur diyaaris aan galayaa marka jikadan soo galay distii baan dabka soo saartay waxaan ku soo shubtay nus litir caano ah waxaan ku soo darsaday wax yar oo heel ah waxaan ku soo darsaday sonkor waxaan rabaa inaan labeeniyad sameeyo sidaa darteed baa xilli hore aan jikada u soo galay waayo waxaan jeclahay labeeniyada intaan xilli hore sameeyo in talaagada gashto si fiican iigu qabowdo soo caanihii dabkii aan u shiday waxa waaye si u soo yara diiraan waan yar walwalaaqay kadibna waxaan soo qaatay waxa waaye madeebada wax ku soo shubtay 2 malqacdood oo labeeniyad ah iyo wax yar oo caano ah kadibna labeeniyada iyo caanaha isku walwalaaqaya markaan isku walaaqo caanihii baan ku soo darayaa oo dabka ii saarna caanaha dabka ii saaran wali may karkarin saa u jeedaanba haddii kow bay soo diirayaan kadibna walaaqid baan ku bilaabayaa caanuhu hadunba ii soo yara diireen may kululaanin intayna wali kululaanin baa anigu ku darsadaa kastarta soo waa kaasaan isku walwalaaqaya ilaa inta ay labeeniyada ay kasoo karkarayso insha Allah soo waa kana labeeniyadii sidii baan u walwalaaqayay hadda ayay soo karkaraysaa waxa weeye labeeniyadu markay soo karkarto 5 daqiiqo baan dabka ku daayaa 5 daqiiqana waan dul taagnaada intii labeeniyadu dabka saarantoo dhan baan dul taagnaada sayse iiga gubanin amba intay u soo karkarto aysan dabka iga daadanin amba aysan burbur iiga yeelanin madhow marka waa kaasa marna waan walaaqaya hadda marna waan ka deenayaa ilaa 5 daqiiqo kadib baan isku soo noqonaynaa cabaar bay hadda labeeniyada ay dabka saarnayd way soo karkaraysay aniguna marna aan walaaqayay marna aan ka joojinayay soo hadda labeeniyadii bisayl bay ii tahay marka waxa weeye dabkan ka diminayaa labeeniyada saa u jeedana labeeniyad adag oo fadhida ma ahan waa labeeniyad iska jilicsan anaana ugu talagalay waa madhow markii talaagada gasho wax yar bay fadhiisan doontaa marka maan rabin inay iga noqoto labeeniyad dhagax ah maadaama madhow too la rabo inaan fruit iyo alaabaan ku darsado soo hadda labeeniyadii waxaan ku soo shubtay madeebadan kadibna 30 daqiiqo banaanka u yara daayay intuu kulaylku ka ba'ayo kadibna hadda waxaan gelinayaa talaagada ilaa xilliga furka laga gaarayo talaagada ay ku jiri doontaa wayna sii qaboobi doontaa soo haddana maqliyaan dabka soo saartay waxaan rabaa inaan sameysto hilibkii sambuusaha marka hilibkii sambuusaha ku soo ritay maqliga anigu qad sambuusa waxaan ka sameystaa hilib wax yar oo kaarota wax yar oo toona iyo kabsar baa isku soo ridqa soo intii aan isku soo ridqay maqliga ku soo ritay kadibna soo jeeteen wax yar oo milix aan ku daray kadibna hilibkii wixii oo dhan isku yar walwalaaqaya soo hilibku uu isaga wada degdegin darteed baa u yar walwalaaqaya kadib markaan yar walwalaaqo waan yara deynayaa soo hilibku uu biyo u soo dhalo insha Allah sidaa u jeedaan hilibkii biyo ayuu soo dhalay aan wax biyo kuma darin marka hadda malqacadii aan soo qaatay hilibkii aan saa u walwalaaqaya hilibku isku yara degdegay marka hilibkii aan kala fufujinayaa soo waxaas ku soo noqonayna markuu hilibku uu biyaha oo dhan soo gursado uu soo qalalo insha Allah waa kana hilibkii tuqadii way soo qalashay biyihii soo kursatay soo hadda waxaan ku soo darsanayaa waa xabad basal weyn oo aan soo jarjaray iyo waxaan ku soo darsanayaa xawaashi badan aan tuqada kuma darsado marka waxaan ku darsanayaa xawaashiga oo mendiga la dhaho wax yar oo kamid ah iyo xawaashi buurbuur amba geedaha xawaashiga la dhaho amba coriander powder iyo wax yar oo oregano ah kadibna inta dhan isku walaaqaya cabaar baan sugi doonaa inta ay basasha iyo hilibku waxa dhan ay kasoo bislaanayaan oo ay si fiican isugu soo huurayaan oo basasha midabka cadaanka uu ka tagayo oo si fiican ay u soo shiilmayso insha Allah soo hadda hilibkii iyo basashii iyo alaabtii oo dhan
si fiican ay isugu soo shiilantay, si fiican bay isugu soo bislaatay. Hadda diyaar ay noo tahay duqadeeni amba hilibkeeni sambuusaha. Soo hadda dabkan ka daminayaa. Cabaar baa yara sugaya intay duqada ii qaboweyso. Kadib baa sambuusahan xirxiran doonaa insha Allah. Soo haddana waxaan rabaa inaan sambuusihii aan laalaabo. Marka meesha waa meeshii aan sambuusaha aan ku lalaabi lahaa. Alaabta meesha aan kusoo diyaarsadayna waa alaabta aan isticmaalna marka sambuusaha lalaabayo. Marka madeebada waxay u jirto waa duqatii aan isla soo sameysanay oo iisoo qabowday. Halkan waxay ugu jira bacdan waa fooliyada aan ku laabi doono duqada. Fooliyadan baan isticmaali doonaa. Waxaa la dhahaa spring roll dapshiid. Fooliyada waxyaabo badan baa loo isticmaalaa. Dhowr siyaabood baa xitaa loo laabaa. Marka ani sidaa sawirkeeda sare ku sawirna baan u laabi doonaa insha Allah oo duuduuban. Sambuusa 3 gees maanta ma jiro. Sambuusa duuduub baa sameyn doonaa insha Allah. Soo fooliyadaas aan isticmaali doonaa. Halkan waxay ugu jira waa daqiiqii biyo isku soo qasay. Waa dee sambuusahan ku laabi lahaa. Tareegiyan dul dhigan lahaa. Iyo waxaa waaye bahalkan cuntada lagu jarjarto oo aan sambuusaha ku laalaabi doono. Soo intan bahalka igu diyaarsan. Soo waxaan sameynayaa bacdii ay ku jirtay fooliyadii baan furay. Fooliyadu sambu u eg tahay 4 gees weeyaan. Sambu isku dul saaran tahay waa fooliyaro khafiif ah. Soo saa u jeedaan baan u kala furfurayaa mar walba. Xabadan doonaya saasoo kale ugu soo jiidaya. Kadib waxaan sameynayaa biyihii iyo daqiiqdii baa halka hoose aan ka marinayaa fooliyada saa u jeedaanba. Kadib waxaan soo qaadanayaa 2 malqaacadood oo duqadiya halka saraan ka dhigayaa halka hore. Kadib halka afkii horaan saa u soo laabay. Haddana hareerihii saa u jeedana u soo laabayaa. Ay wishin ay fahmaysan kulliba way arkaysan iska fahmi doontaan. Kadibna saasaan u soo laalaabaya amba aan u soo duuduubaya. Haddana afkeera damba waxaan ka marinayaa daqiiqdii biyo isku qasay. Soo markaan soo laalaabay saas uu ekaaday. Soo haddana waxaan tusin doonaa qaar kale kolo isagii fahmi doontaan insha Allah. Qaabka u jeedaan baan wada laalaabanayaa sambuusaha insha Allah. Soo walaalayaal waxaan idin codsanayaa fiidiyowga hadaa ka heshaan inaydan like-tayga la bakhaylin oo like saartaan. Waxa waaye asxaabtiin la sii share gareysaan channel-kana subscribe-ta eedan la dhaafin. Yaa hadaa wax yar xitaa iga faa'iidaan waxa waaye dee like-ta iyo share-ta subscribe-ta igu dadaalaan idin leeyahay insha Allah. Soo hadda sambuusihii waan soo wada laalaabtay 10 xab uu noqday. Soo tareegii baan saa ugu soo wada ritay saan ayuu diyaar iigu yahay. Sambuusahaygi waxa waaye sambuusa duuduubkii. Marka hadda waxaan sameeyay waxaan soo qaatay air fryer-ka mashiinka la dhaho. Air fryer-ka aan maanta sambuusahan ku sameysan doonaa. Ma shiilayo anigu saliid iyo shiilitaanka waa ka ilbaxay. Bahalkana ku samaystaa. Sidoo sambuusaha caadiga ee saliidda lagu dubo kalluun buuna dhadhankiisu soo baxa. Marka air fryer-ka wax yar mashiinka waxaan soo mariyay saliid. Kadibna sambuusiyo dhan baan dul dhigay. Kadibna burush yar baan soo qaatay. Wax yar oo saliidoon micno lahayn aan burushka soo marinayaa. Sambuusi korkiisa baan wax yar oo saliida oo niyoonayo baan wax yar marmarinaya saa u jeedaanba. Kadibna air fryer-kii baan gelinayaa. Kadibna waxaan u geynayaa moodka oo lagu dubo keegagii waxaas. Temperature-ka 170 baan uga dhigayaa. 8 daqiiqaan ku dayn doonaa. 8 daqiiqo kadib markuu mashiinku istimiyo sambuusaha dhinaca kale intaan u rogo baan 4 daqiiqo meelahaas oo kale aan haddana u geyn doonaa insha Allah. Soo adi 12-13 daqiiqo kadib markuu sambuusuhu soo wada dubmo soo wada shiilmay kadib baan isku soo noqonaynaa. Waa kana sambuusihii san ayuu igu soo dubmay uu diyaar iigu yahay. 6 xabo baan hadda soo shiilay. 4tii kale ii hadhay haddana sidan oo kale aan u shiili doonaa insha Allah. Waa sambuusu waxa waaye wada caafimaad ah waa saliid badan lagu shiiliyay kan kana caafimaad badan oo saliid ma cabayo saliid badan isma arkaysaan. Soo waa kaas hadee. Soo halkaana waxaan ku soo diyaarsaday labeeniyadii iyo khudaar iyo koobabkaas oo hadda waxaan rabaa inaan labeeniyadii aan diyaarsado insha Allah. Marka madeebada khudaarta igu jirta waxay ka kooban tahay waa cambalaf, waa geed kaldo kiwi, waa shamaam, iyo waxa weeye blueberry iyo wax yar oo cinabka nooca fiyooleega ah. 5 khudaadood baa madeebadkan igu jirta.
Madeebadkan waxa igu jira waa labeeniyadii oo soo qabowday oo dhowr saacadood ku jirtay talaagada. Halkan waa koobkii aan labeeniyada aan ku diyaarin lahaa. Waxaan sameeyay khudradii iyo labeeniyadii ayaan isku geeyay saa u jeedaan baan isugu daray. Waxaan rabaa markaa khudradii labeeniyadii isku jirta fruitkii labeeniyadan inaan koobka ku shubto. Markaa koobkii aan soo qaaday labeeniyadii baa saa u jeedaan ugu shubaaya. Laba koob baan ku diyaarinaa marka hore 3 koob baan islaa laakiin saa u jeedo 3 koob ma deeqayso. Marka kaasa koobkii ugu horeeyay saas u soo diyaariyay. Labadii koob basaana ugu soo shubay labeeniyadii. Maasha Allah inaba caadi maaha. Way qurux badan yihiin kaaliska arag weeyaan. Wayna macaan yihiin actually. Labeeniyadii saana ay diyaari ugu tahay fruit custard baa la dhahaa Englishna. Haddana waxaan rabaa inaan juice ridqado. Marka shamaan baan ku soo shubtay koobkan. Shamaan waxaan ku soo daray biyo yar oo qabow, baraf iyo sonkor. Intii aan soo ridqay kadibna waxaan ku soo shubtay jeegan oo aan ku diyaarsanay cabitaanka. Haddana qaybtii kale shamaamku iyo harsanayd baa haddana soo ridqay. Markii aan soo ridqay haddana isla jeegan ku shubtay juice-kina saas buu diyaar igu yahay. Ugu dambeyn afurkii miiskii lagu afuri lahaa amba lagu cunteyn lahaa baan kusoo diyaariyay. Marka hore waxaan islahaa afur iyo casho wada duub laakiin suurtagal bay noqon weysay. Waqtigiiba waxaa iga cunay inta afurka kaligiis aan duubayay. Marka kana afurkii saana kusoo diyaariyay. Cashadii miiska weli ma soo dhigin. Cashadii afurkiis ma raacinayno wax yar bay kala dambeyn doonaan insha Allah. Waa kaas hadda labeeniyadii waa biyo qabow. Waa sambuusihii waa juice-kii shumac yar baa halkaa ii yaalo. 2 bileed baa soo dul dhigay mid lagu casheynayo mid lagu afurayo. Malqacadii lagu cuni lahaa. Kastarka koobkii cabitaanka lagu cabbi lahaa. Saa u jeedaan miisku u sharaxan yahay. Maasha Allah inaba caadi maahan. Anaga 2 qof aan nahay waa naga badan yahay afurkan. Timirtii halkaan ii taalo. Afur wanaagsan baa leeyahay dhammaantiinba. Waa kana qaybteedii halkaan ku soo diyaarsaday 4 xabbo sambuus ah iyo timirtii aan halkaa ku soo ritay. Koobkeygii sharaabka ayaan soo shubtay iyo koobkeygii kastarta iyo fruitka isku jirtay. Kolo qofka inta cuno horu ka dhargaya. Hadda gabagabadii fiidiyowgan joognaa. Intaan fiidiyowga ka kulmayno waxaad leeyahay maca salaama afur wanaagsan.